tahay inaga lafteena ilaa afar dawladood baynu waxaa weeye waxaan ka nahay muhiim Kenya oo kale waxaynu ka nahay cudwi baaris oo muhiim ah waxaa weeye Ethiopia oo kale cudwi baaris aynu ka nahay Soomaaliya oo kale waxaa weeye inaga iska leh sidoo kale Djibouti oo inaga waxaa weeye iyaduna waxaa weeye dawladda gaarkeeda waxaa weeye taagan iyo kuwa badan oo kale iyaduna process waad u socdo dadkiina oo rabin hadii aan sii faahfaahiyo intaas oo dhan waxaa weeye oo intaas oo maaragtay baaxadii inta leeg مسؤولين توعوا يا كيما يا نيك نيروبي كيما هذا يا نيك جيبوتي كيما هذا يا نيك انت ولا حيزه كيما هذا نيك استوى وحاول مسؤول سوماليين هذا waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdikariin Cali Cumar oo hore u ahaan jiray ambassador Soomaaliya waa nin mudanaha Soomaaliya oo u santahay مسؤولية السعر إنكو سيان نكيان هذا الشكل الأخير من وني الصومالي اختاروا أنا قاعد سرسار بهذا ولا كوينه أما كيان أم إثيوبيا هرب إنه حس أنا هرب ومرنا هاي كويس نعم حقيقة ما تعرف شو صور كل مسألة مركب وحنا رأينا في المعمول وضروري إنه هو في حاجات تفصيل ولا إيش يعني وتلرب تشبيه لها عافية وصوت بيرسلي وأصرت لك يعني أيو توجي ومذيع مركب الوقت East Africa waa degannahay dad baan la noolnahay daris baan leenahay qaxooti baa naga jooga danaha naga ku jira waa in aan wax alla wax aan tari karno qofka leaderkaas oo kale inaan garab istaagno maamaha baa jirta nin psychiatric oo yiri oo dadka fulayada cabsi ay ka baqayaan inay dhintaan ayaa waxay galaan suicide leeyahay wax baqaya inaan inta ka baqaya markuu isdilaya waxaan qabaa annagu cabsida aan ka qabno ah in aan fail garowna aad u badan waa inaan xoog saarnaa cabsi ah sidee baan ku succeed garowna hadduu asaga succeed garowba we all succeed hadduu fail garowba we all fail marka united we stand and divided we fall وتعنو إماتي ولما كان قادني أقول نويمو تيبا ديار بلنا إن الفلنو سيبا أنا أحمد هذا مركان كلها له وحن ديار وهاي إن أقوي مع نيروبي كان بين كاجنا كتب له هذا يوم سلطان أحمد هذا راح نقصد وين يا سلطان أحمد دعالي قاعد مدير بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وقع مدير قميص دي سوق الشرعي marka hore soo dhaweynta waxaan la qabaa ummadiiga horeysay culimo iyo cuqaad iyo waxgarab barahay waxaan ku darayaa oo keliya waxa inoo yimid maadaan ma uu ka yimid qaaradii Afrika aan oranay waa madaxweynihii qaaradda Afrika waxaan oranaynaa waa madaxweynihii geeska Afrika waxaynu oranaynaa madaxweyne walaalo ku qabsanayaa haddaynu raahno waa kii Soomaaliya waa kii hosnada yani ma taqaanaa هاي من با سجال يلحن كي لا دورة جري اللي هذا دكتور محمود أبو كاتو هاي مركا مال بوتجي اللي دورني وحال يردات كاديات كسود دكتور دكتور كيو مدرين له مركا حتى وحن كله هاي دات كادي بعد قلت ميله دول يوسف مدرين له أدوار من نبض قبل إلهي المبكرة هذا وحن ملاين يا أبو قرب تاجن هاي الصومالي ده أنا أبو قرب تاجن تهاي runtii markii aan maqlay ugu horreysay la doortay habeenkaas computerkan ka arkay waa farxay waayo isliin waxaan joogi jiray ayadoo iska daamudana la haweystay dariiqa markaad maraysa caawa guriga ma ku soo noqon doontaa mase hore ugu wada doonaa waxaan ku soo dhaweynayaa Suldaan Faqisi Suldaan aan ku soo dhaweynayno walaalkeen Yuusuf Xasan oo inoo ah waa marka labaad markii hore asagoo dooran oo la doortay laga doortay meesha xaq ahayd runtii dibkuna ka taagnaa kadib markii la ogaaday ballanqaadyadii uu sameeyay
ballanqaadyada insha allahu tacaala oo codka ummadda soomaaliyeed ay ka mid tahay ee maanta ku nool gobolka ama magaalada ka mid ah Islii qaybteeda maaragtay inta la isku yiraahdo Kamakunji doorashada jacayl uu dadka laga jecel yahay baaha mas'uuliyadda inuu ninka ridan karo kaalinta uu ka soo bixi karo ayaa loo doortay. haddana waxaan kusoo dhaweynayaa ugaas maxamed ugaas xirsi شراعي بل وحي مركب وحاول يلامجي لم يكون نقضي صوبت عيد قرور حبال ودادي قال لي يا مسؤول وقال لي روح مسؤول كدا يوم يوسف هو طبعا يوسف هو طبعا وهكذا لو شافي ودكتور مال يرادو هوتيل بالي يقول برتقاضي وكا ما قاد ماشى كبقيسو هنرجع عشان تبدأ عاور تلك تقوله كل جاي جينا مكاسل يروح أسوان بعدين وح إسلام سيد دلو لو فقط تبكران أنت يوسف وطرت وحسب بكران وفصومالي haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xasan cumar oo ah gudoomiyaha Somali community ee Columbus Ohio ka Yusuf waxa uu ka mid yahay dadka Soomaalida oo tirada yar oo maanta Soomaali runtii aan dhihi karo wali waxay haystaan dadnimadii Soomaalida lagu yaqaanay oo ah nin aqoon leh nin garasho wanaagsan leh nin aaminsan inuu meesha uu xukuma Kamakunji baa la yiraahdaa magac haddaan khaldinin oo Islii ka mid tahay uu yahay nin ilaahay dadkaas u keenay ana sheekaystay nin saaxiibkaya oo meesha business ku leh waan telefoon ma ku ahaada wuxuu ugu yiri Yusuf Xasan intuusan noo iman ka hor intana loo yimaado baa sida raashinka oo kale waxna lagu raran jiray baabuurtana lagu raran jiray ka bacdina waxa weeye lacagan bixina maana lagu soo deyn jiray haddana wuxuu mar alla markii nin laga xidhaba Yusuf xafiiskiisa wacna Yusuf waxay markii loo yimaado laba arrimood baan rabaa inaan Yusuf sheego Yusufow Soomaali oo dooratay markii hore haddana Soomaali doorasho ka sugaysaa cid gaar oo ku dooratay ma jirin Soomaali oo dhan baa ku dooratay Soomaali u noqo xaqsoon noqo kii si wax wada qaybiya kii aan soo kala dhawaysan kii maxaan ku dhahay kii uu yimaadaba sidii uu kugu lisay adigu hambaysid taas waa taas waa midda labaade Yusuf oo xildhibaanada maanta aad ku guuleysatay waxay ku timi dhiig bay ku timi dad badan baa u dhintay oo Soomaaliyeed oo aan ogsoonahay oo rag badan oo fadhiya ogsoon yihiin hadday yihiin qolyaha jooga Kenya iyo hadday yihiin qolyaha jooga maxaan ku dhahay Ethiopia iyo qolyaha jooga Djibouti dad fara badan baa u dhintay maanta midhaha aad goosanaysaan maxaan ku dhahay aad xalka ku qabanaysaan marka waxaan kuu idin sheegayaa inaad idinkuna abaalka guddaan oo Soomaali maanta dhulkay taalaay aad waxa u qaban kartaa nin ganacsada ah magaalada degan gabiya cusubna ah oo doonayo tixyaro gabay inuu noo mariyo waxaan kusoo dhaweynayaa Xaamid Ismaaciil Xirsi darbane Yuusufow waa ognahay door inaad tahay inkastaan u diiba joogahayn foodki soo diray oo waa lagula duubnaa dhammaan duciyo taageere allayla doorashadii reer Islii waa ku diirsaday xillo doontu Nairobi baa daha loo furay sidaan calaanka daafacay qalbiga ayaan ka doogsaday bisha March 4 ayay haddana shacabka Kenya ku noqonayaan doorasho ay ku dooranayaan madaxweyne cusub baarlamaan cusub iyo madax goboleed 47 gobol oo madax banaan oo gafarna iyo xildhibaano kale loo dooranayo badan dad baa shaqaystay anigu waan hor istaagay arrintaas baarlamaankan tagnay dawladdan kala hadalnay boqolka iyo kontonka guri lama tag maanta weydiisay si sharci ahaanba waxaa taasi dheer in ganacsatada Soomaalidu la dhibi jiray Soomaalidu waxay aad ugu badan yihiin baac mushtarigan alaabta dibadda ka keena dadka ka keena oo la yiraahdo import export waliba cargo handling
aad bay ugu xoog badan yihiin marka dekada Mombasa ayaa lagu qabtay alaabtoodii garoonka diyaaradaha Eldoret baa lagu qabtay xaafadoo dhanba baabuurtii soo galaysaa mar la wada qabtay 240 container baa laga qabtay markaana ururka canshuurta qabsaday inta badan waxay iyagu yiraahdaan dadka Soomaalidu canshuurta ma bixiyaan ama se masuq lacag bay ku bixiyaan oo si buuxda waxaan u tagnay ninka madaxda ah canshuurta ururka canshuurta qaada Kenya Revenue Authority waan ka sii daynay xoolahaas heshiis baan la gaarnay in dhibaatada iyo cadaadiska ganacsatada Soomaaliyeed lagu hayo inay ka joojiyaan oo xaafadda ay xafiis ka furtaan oo si toos ah ay ula xiriiraan dadka Soomaalida ee ganacsatada markaan xildhibaanka ahaa 7 cisho habeen markii uu nin telefoon ii soo diray markaa waxaan isiri tolo ma dhib baa haysta telefoonka ka qaaday waa nin qayl ayaan u malaynaa inuu ahaa waqtigaas markaas uu adeer Yusuf maantaan magaalada soo wareegay oo dhiiqadii iyo jidadkii waa sidaas goormaad wax ka qaban doontaa meeshan waan ku rafaadsanahay markaasaan iri 7 cishaan xildhibaan ahaadeen markuu ugu horeysay waana habeennimee bal xafiiska berito igu imo warbaj anigu maalintii ma socdo buu yidhi habeenkii unbaa diyaarka ka qaay jidadkan waa taad ballan qaaday ee naga samee buu yidhi marka jidadka burbursan ee xaafadda muddo 20 sano waxba lagama qaban hawl baan ka bilownay jidkan Second Avenue oo gaasku uu ka waramayay wuu dhammaystiran yahay markaan halkan ka noqdo hadduu ilaahay yiraahdo ayaan si rasmi ahaan u furaynaa jidka ugu weyn ee Garissa Lodge soo hormaray First Avenue qandaraaskii waa la bixiyay gacanta lagu hayaa iminka jidka magaalada ka soo gala weyn ee Janawayruunga la yiraahdo asaguna dhisma lagu hayaa 22 oo degmada ah ayaa iminka gacanta lagu hayaa oo la dhisayaa intooda badanna intaan xildhibaanka ahaaba la bilaabay waxaan rajaynayaa in sanadkan lagu dhameystiro xaafadda nal baa la geliyay berigii hore nal ma lahayn mugdi bay ahayd lacagta horumarka loogu talagalay xaafadda CDF waa lacag $2 milyan ay dawladda siiso sanadkiiba berigii hore xildhibaanka ayaa jeebka gashan jiray oo masruufkiisa ayaa ku bixi jirtay anigu taasi waan joojiyay toos bay u gashaa xaafadda 14 dugsi oo sare ayaan ku samaynay isli anigu waxaan oran karaa maanta waa xuduudii Soomaaliyeed hantidii Soomaaliyeed baa taala dadkeeni oo dhan baa degan waana suuqa ganacsiga ugu weyn Afrikada bari runtina ummad markay xoogaysato oo ay muuqato cadowgeedana uu badanayaa marka waa lagama maarmaan in dadka Soomaaliyeed ay cod ku yeeshaan magaalada madaxda dalka Kenya waa in la helaa qofkii danaha iyo hantida Soomaaliyeed daafici lahaa aniguna waxaan isleeyahay maadaama aan ahay xildhibaankii ugu horeeyay Soomaaliyeed ee Nairobi laga doorta hawshaasi intii aan qaban karay waan qabtay waxaan idin badan qaaday inta anigu aan xildhibaanka ahay iyo inta aan noolahayba inaanan taagnaanayn meel dadka Soomaaliyeed lagu dulmayo danaha Soomaaliyeed lagu dulmayo haddii ay ii suurtageli wayso waan iscasilayaa hal maalin lama joogo laakiinse inta aan xildhibaanka ahay inaan u dagaalamayo midnimada cadaaladda iyo horumarka dadka Soomaaliyeed ayaan balan qaaday maadaama aad ku xiran tihiin dadka isli dad baa idinka jooga awlaadiinni baa caruurtiinni baa joogta dumarkii baa jooga qaarkiin xoolaad ku leedihiin bacmushari baad ku leedihiin dadkeenni baa degan waxaan isleeyahay wax waad ka qaban kartaan doorashadayda